sababta aan ka hadli doono maanta tradersku inay financial world ka cararaan. Financial world kana waxaan uga jeedaa cryptocurrency-ga, stock market-ka iyo forex-ka. دودو أصحابته أديت بني سلامي ولكن محمد جامع معقول ماها channelkeena YouTube-ka 3000 oo subscriber inaan wali gaadhin insha Allah waxaan ku codsanayaa inaad subscribe-ka aad noo saartaan iyo like-ta ku bakhiilina like asxaabtidana la share gareeyo video-ga waxaan u maleynayaa qof idinka inaga mid ah oo trader ah biidnillah taala qodobadan ka hadli doono maanta waa ka faa'iidi doona update yar doonaya channelkeena laga siiyo taas oo insha Allah taala sanadkan waxaan ku dadaalayaa in waxyaabo aad iyo aad u fara badan soo gudbiyo channelka haday tahay waxyaabo cilmiya haday tahay analysis fara badan marka insha Allah si aan waxaas oo dhan aan ku dhaafin subscribe قبلك فرصة afartan qodob ee aad iyo aad ugu muhiimsan markuu qofku doonayo trader inuu noqdo oo attention-kiisa iyo focus-kiisa oo dhan looga baahan yahay inuu saaro waxaasna waxa ku ictimaadaysaa qof walba shakhsiyadiisa iyo personality-giisa uu leeyahay iyo sabarka uu leeyahay iyo waqtiga uu haysto asagu marka afar qodob oo ra'iisi ayaa jira si qofku waqtigiisa sabarkiisa iyo psychology-giisa taasina waxa weeye sababta ra'iisiga ah ee dadka inta badan suuqa ay ku khasaaraan oo aanay suuqadan financial-ka aanay ugu raagin number 1 waxaynu haynaa scalping wax la yiraahdo scalping-na waxa looga jeedaa dadka doonaya inay ka faa'iidaan waqtiyada yar yar taas oo dadkaasi ay isku xidhayaan time frame-yada yar yar sida 1 hour-ka 30 minute-ka 15-ka ilaa 5 minute-ka oo halka trade-kooda waqtiyada yar yar ka faa'iidaya amba ka eeganaya waqtiyada yar yar amba qaabka scalping-ka loo trade gareeyo hada jeer waxa ka faa'iida dadka waqti far badan haya ee computer-ka maartay hor fadhiya intaas saacadood marka haddii aad waqti aad haysid ka loo trade gareeyo waad ka faa'iideysan kartaa qaabka labaadna waxa weeye daily trade qofkii inuu si maalin leeyahay uu qaato tradeyo taas oo qofkaasi uu eegayo daily time frame-ka amba waqtiga daily-ga 4 hour-ka ilaa 1 hour-ka dad baa xitaa ilaa 15 minute-ka meelaha u daga oo trade ka qaata qofkaasi trade wuxuu gali karaa markuu intaas oo time frame isu soo maro kadibna trade-giisa waa qaadanaya stop loss macquul ay ku xidhanaya qofkaasi hawlihiisa maalmeed ay wadanaya qofkaasina uma baahna inuu mar walba computer-ka uu dul joogo 4 saacadood amba 8 saacadood ba mar buu eegaya maalintu markay dhamaatana waa ka baxaya trade-ka amba ilaa maalinta kale ayuu sii haysan karaa trade-ka section-ka saddexaad waxa la yiraahdaa swing trade qofku markuu doonayo inuu waqtiyada dhexdhexaadka ah inuu ka faa'iido waa ka faa'iidi karaa taas oo qofkaasi 2 cisho 3 cisho week inta u dhaxaysa uu ku jiri karo trade-ka marka qofkaasina inta badan wuxuu sameeyaa weekly time frame-ka daily-ga ilaa 4 hour-ka ayuu isku xidhaa fursad markuu ka helo waa trade gareeya suuqa qaybta afraad ee u dambaysa aynu imanayna waxa weeye position trade waxa la yiraahdo ama position trader ana had jeer waxa isticmaala dadka maartay doonaya inay hal bil 3 bilood 6 bilood ay ku jiraan trade-yada waqtiyada waaweyn ka soo eegaya jihada guud ee suuqa maartay u socdo amba coin-ku amba wuxuu doona ha noqdo time frame-yadaasina waa kala duwan yihiin waxay noqon karaan monthly-ga weekly-ga inta ayaa ugu muhiimsan oo inta badan maartay la isku xidhaa marka qodobkan sababta aan u sheegayo aan uga hadlayo waxa kaliftay waxaan arkay dad fara badan oo ku jaha wareeray suuqan oo aan garanayn qaabka loo trade gareeyo amba qaabka u haboon ee saacidaya personality-giisa haday tahay iyo sabarkiisa iyo waqtigiisa marka walaalayaal maadaama aad ogaateen imaka qaabka saxda ah ee looga faa'iideysto suuqa qof walba asagoo maartay isqiyaasaya naftiisa aan been u sheegayn sabarkiisa iyo waqtigiisa iyo psychology-giisa insha Allah taala waxaan rajaynayaa inaad go'aamo sax ah aad qaadataan وقابك الصحدة أدو تريد غريسان بإذن الله تعالى